warshada daqiiqda ee alwadaniya oo dhawaan laga hirgeliyay magaalada madaxda gobolka Saaxil ee Berbera ayaa maanta la guddoonsiiyay shahaadada tayada wax soo saarka dalka. Gudoomiyaha hay'adda dhawrista iyo tayada Somaliland oo booqasho ku tagay xarunta warshada alwadaniya ayaa maamulka shirkadu ka guddoomiyay shahaadadaasi. Munaasabadani oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay madaxa suuqaynta shirkadaasi alwadaniya guul iimaan iyo gudoomiyaha ganacsatada Somaliland Yuusuf Cali Nuur iyo madaxa laabka iyo wax soo saarka shirkadaasi alwadaniya. warshada alwadaniya markasta iyadoo ka jawaabaysa baahida suuqa daqiiqda ee Somaliland waxaanu soo saarnay waxa weeye daqiiq iyadoo aan markaste xilli kaste iyo aamin kaste iyo cadad kaste oo loo baahdo oo daqiiqa maanta laga heli karo warshada alwadaniya ha noqoto tii daqiiqdii moofooyinka ha noqoto daqiiqdii guryaha iyo buushii xoolaha taasoo aan u kala sameynay inaan daqiiqaha kala saarno tii guryuhu leeyihiin iyo tii moofooyinku ay lahaayeen. wax soo saarka warshadani wuxuu magac iyo sumcad weyn inoogu yahay Jamhuuriyadda Somaliland iyadoo markii ugu horeysay ay noo noqonayso daqiiq aynu wadanka ku sameynay in gudaha wadanka lagu isticmaalo sidoo kalena wadamada jaarka insha Allah ay inoo gaadho daqiiqdeenu haddana ay inoo gaadhayba iyo saxaafadaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. horta anaga qolada reer Berbera farxad gooni ay noo tahay oo malaa idinka aan ku jibay noo tahay sababtoo ah magaaladayadii ay warshada ku taala shaqaalihii wax soo saarkii wixii oo dhan runtii waa wax lagu baariko weey waxaan ku baarikaynaa company-gan national daqiiqda reer xarbi ka mid yahay aad baan ugu duceynaa ugu baarikaynaa sababtoo waxa weeye waa wax lagu daydaa waxa weeye waxyaabaha ugu quudka badan ee ummaddu ugu quud badan tahay waxa weeye waa daqiiq waxa imika wadankeena waxa yimaada markab aan daqiiq sideen ma jiro waa raashinka ugu badan bariiska badan marka waxa weeye insha Allah waxa weeye waa guul ganacsadana waxaan ku waanaynaa inay warshad keenaan aanay waxyaabaha ka soo baxa wadankaagu waa sida xoolaha noolaa kala weeye waxa weeye waa in lagu daydaa ku dayashay ku mudan tahay runtii daqiiqdana tijaabadeedii waxaan ka haynaa anagu haddaan reer Berbera nahay and we enjoy that all the people here to give National Flour Mill Company the quality certificate and as we are working in the quality department we are doing all procedure, we are doing all inspection since the vessel is coming from the in the seaboard and all our documents is ready to take the inspection. Not only here, also in the vessels, also in the market. Nothing can go to the market unless we are checked before. All the procedure is under control from organization. السادة الضيوف الكرام الأخوة الزملاء مرحبا بكم في الشركة الوطنية للمطاحن يسعدني ويشرفني حضوركم اليوم ومشاركتنا لنا في هذا الحفل. نحن الشركة الوطنية للمطاحن سعداء بتوفير السلع الغذائية الضرورية للشعب الصومالي وهو الدقيق الوطني. لأول مرة في تاريخ صوماليلاند يتم إنتاج الدقيق الأبيض محليا وسنمضي دائما في توفير وتلبية احتياجات المواطن الصومالي. dhankooda waxaa iyaguna hadalka iska daba qaatay xogeyaasha gobolka Saaxil iyo ka degmada Berbera iyo xildhibaan Indho oo kamid ah gudida golaha guurtida Somaliland iyagoo si isku mid ah u bogaadiyay wax soo saarka ay dalka ku soo kordhisay shirkadda alwadaniya. runtii sharaf weyn bay maanta inoo tahay inagoo joogna magaalada madaxda gobolka Saaxil magaalada Berbera magaalada xataarada iyo baxnimada inaynu halkan u joogno oo aynu marxaati ka noqono ogolaanshaha ama certificate la siiyay shirkadda alwadaniya ee daqiiqda ay horumarka ka yihiin shirkadda weyn Al Harbi. runtii waxa weeyaan waa mahad Ilaahay waana farxad waxay muujinaysaa maanta qaranku halku marayo maanta kama hadlayno warshad la sameeyay iyo warshad wax soo saaraysa kama hadlayno waxaynu ka hadlaynaa quality-ga
waxaa farxad weyn inoo ah maanta inaynu joogno xaflad lagu guddoonsiinayo shahaadadii quality controlka ama tayada shirkadda ama warshadda alwataniya waxaa runtii farxad ah inaynu helno quality control eegi kara waxa qarankeena quudanayo taa haddaan ka gudbo waxa maanta kow ah in aynu helno warshad ay leedahay Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dad wadaynihi leeyihiin oo inoo soo saarta raashin aynu quudanayno isla markaana aynu helno ciddii baan lahayd tayadeeda isla markaana aynu helno ciddii baari lahayd haddaba waxa warshadleyda ama saba investors iyo maalgashade kasta oo Soomaaliland uu xaq u leeyahay sida maalgashade kale oo kasta iyo warshadley waliba ay xaq ugu leedahay halkan waxaan uga diraynaa baaq bulshada Soomaaliland iyo kuwa geeska Afrika degan waxaan leenahay daqiiqda maanta halkan quality-ga lagu gadoonsiinaya dalahaan anagu horaan u siinay oo dad dumarkayaga ugu quality controlsan laabkoodaan ku kalsoonahay kii saddexaadna waa la bixiyay daqiiqdaasi daqiiq walba way idinka dhowdahay way idinka fiican tahay idinka iyo wadamada geeska Afrika iyo kuwa Arab League ee xagga naga xigaaba in badan baan wax dibadda waxna looga keenayay Soomaaliland maanta waxay maraysaa inay wax dhoofiso warshadleyda waxa madaxweynaha siyaasaddiisa kow ka ah in la soo dhaweeyo madaxweynihii warshadaha yimi odayaal waan maqlayay xamaaliin iyo wax sheegay maalmo dhawey TV-ga ka hadlay waxaan u malaynayaa kuwaas uu Yuusufna nagala hadlay halkan aanu baaq uga diraynaa madaxweynihii iyo xukuumaddiiba qoladiina gobolkana dee warshadu noqon mayso sidii tii warshada simirkeeda ugu dambeyntii waxa wax soo saarka shirkadda inoo faahfaahiyay gudoomiyaha shirkadda ahna gudoomiyaha shirkadda alwadaniya Axmed Faarax Xarbi iyo gudoomiyaha dhawrista iyo tayada Somaliland munaasabadan waa munaasabad yar laakiin anaga muhiimad weyn aad iyo aad u weyn noole runtii waxa weeye muhiimadda ay noo leedahay waxa weeye waxa maanta la ansixiyay in wixii aanu soo saarayna ee ay dadku cunayeen ay yihiin wax xalaal ah oo caafimaad ahaan ansax ah ayaa maanta la ansixiyey waxa kaloo naloo ansixiyey inaynu dibadda iyo gudaaba ka iibinno wixii aanu soo saarno waxay noo fasaxaysaa inaynu helno certificate hay'ad caalamiya ka soo baxay ama laboratory caalamiya ka soo baxay oo sheegaya in waxa aanu soo saarnaa yihiin wax buuxiyey shuruudihii looga baahay ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa waxaan kaloo u mahadnaqaynaa shaqaalaha iyo madaxda warshadda ee iyaguna natiijadaa ka qayb qaatay ee keenay anigu wax badan ma odhanayo waxaanse leeyahay mashruucan markii aanu hindisaynay hawlo badan iyo dhibaato badan ayaa marka mashruucan oo kale aad samaynayso kaa hor imanaya welina taagan dhibaatooyinka iyo waxaasuna waxay u baahan yihiin taxamul iyo adkaysi iyo inaad ku dhiirato hay-adaha dawladduna inay intaa way qaarkood waa fahamsan yihiin laakiin inay fahmaan oo inaanay ahayn hawshanu hawl waddankeennu waxyaabo badan oo aanu la wadaagin baa jira caalamka intiisa kale mashiinkaa guuxaya leydhkaa adaa iska bixinaya bir yare hadday ka jabto adaa soo iibsanaya meelaad ka soo iibsanaysaa kale ma jirto dhibaatooyin aad iyo aad iyo aad u fara badan markaa shahaadadan aanu maanta bixinaynaa waxaanu u bixinaynaa waxa weeye sidii ilaahay nagu og yahay shaqadii aanu qabannay annagoon cidna u eegayn cidna u exanayn in ay buuxiyeen shuruudihii standardkii ama hertayeedkii aan ugu talagalnay sidaasaanu shahaadadan ku bixinaynaa shahaadadan waa mid la cusboonaysiinayo ma aha mid mar qura uun ah saan horeba u sheegay